halkan waa goobta loo yaqaano Garbada Baydhabo waa meel caan ah oo qof kasta oo Baydhabo yaqaana ama ku dhashay deegaanada Koonfur Galbeed markii uu ku soo dhacayso inay halkan ay tahay goob caan ah oo qurux badan oo loo dalxiis tagi jiray muuqaal ahaan maanta siday u taalo waad u jeedaan sanado ka hor xaalkeeda iyo siday u ekayd iyo dhaqdhaqaaqyada ka socday ee dhinaca bulshada iyo adeegyada dadka ay uga tiirsanayeen sidan si ka duwan bay ahayd maanta waa meel cidla oo haawanaysa waxa ka muuqda 2 iyo 3 iyo 1 laakiin awal qof kasta oo halkan yaqaan waxay ahayd meel tobaneeye dhalinyaro ah ay ku qabeystaan oo ku damaashaadi jireen sawiraan ay ku gali jireen dad xoololey ah inta xoolahooda ay keensadaan halkan biyo uga cabi jireen waxa kale halkan qofkii yaqiinay lagu arki jiray kanaalo kala duwan oo halkan ka baxa oo beer quraadyada ee deegaanada ku yaala ama beeraha carabta ku yaala ay ku waraabin jireen dadka maanta xaaladdu waxay joogtaa in Garbadii mitir yar wax 2 mitir iyo 3 mitir aan ka badnayn inay biyaheedii ay fadhiyaan ma jiraan biyo kale oo ku soo darsamaya intan yar ee ku jirta waxa loo keensaday oo dadka beeraleyda qudaarta ay u keensadeen matooro iyagoo markaas biyaha halkan yaala ay rabaan inay ku waraabistaan beerahooda marka duruufta iyo inay isbedelka halkan ay noqoto meeshii quruxda badneyd ee dalxiiska loo imaan jiray in isbedel qaabkan uu ku dhaco waxyaabaha ugu weyn ee sababay waxay tahay roob yari badan oo dhacday wadanka muddo abaaro ka jiray roob yaraan badan baa dhacday halkan marka biyaha ma ahayn meel oo waligooda ay keedsanaan jireen meel bay ka imaan jireen ishii Baydhabo ka imaan jireen roobab ka da'ay deegaanada fogfog ee buundooyinkan iyo kanaalo kala duwan ee tugag soo mara ayay halkan ku imaan jireen iyagoo jamalka ka soo daadan jiray maanta wixii oo dhan ma jiraan waxa dhacday marka in intii yareed ilqabadka ahayd qof kasta oo banaanka ka yimaada ama Muqdisho ka yimaada ama dibadda ka yimaada markuu deegaanku u yimaado la soo tusi jiray in ay noqoto meel qalalan marka laga reebo in yar oo biyo ay ku jiraan dadkii beeraleyda ahaa ee boqolaalka ahaa ee qudaarta beeri jiray ee magaaladan qudaarta kala duwan naftirkooda markii beeraha u soo go'aan magaalada ku tiirsaneed oo dadka ay ku tiirsanayeen halkan keeni jiray waxa dhacday in ay hirgeliyaan ceelal biyoodiyo ceelashaas ma ahan ceelal riig ah waa ceelal gacanta lagu qoday oo qofka beeraleyga ah halkan jooga markii Garbadii wax ka waayay biyo ay noqotay inuu bacrimin loo sameeyo ama in ceelka 3 habeen 4 habeen biyuhu ay inta isku imaanayaan la sugo oo beeqaamin wax u eg in qofka biilaanaysan u dhicin loo keediyo kadibna beerta qaabkaas lagu waraabiyo laakiin hore waxay ahayd kanaalo socda biyo aan joogsi lahayn ayay beeraha lagu waraabin jiray marka maanta Garbadii Baydhabo qof kasta oo aqoon u leh meeshay marayso waad u jeedaan waxa kale oo jira in goobihii biyaha soo mari jireen buundooyinkii waxay noqdeen meel qashinka lagu daadiyo waxa kale oo dhacday in meelihii buundooyinka biyaha uga imaan jireen wadada biyaha maray ahayd in sarooyin lagu wada dhistay taasna waxay noqotay waa arin dhibaato u keentay Garbadii iyo meelihii kale magacyada quruxda badnaan lahayd inay baabi'iso marka maamulka gobolka iyo kan degmada iyo dawladda hoose dadkii laga rabay in arintan wax ka qabtaan waxaad moodaa inay ka fariisteen waqtiga sii dhamaanaya waa waqtigii xagaaga waxa la gali doonaa mar dhow dayrtii gugi lagama faa'iideysan roobkii deegaanka ka da'ay inkastoo hay'adaha saadaasha hawada ay sheegeen in roob yaraan badan ay dhacday waqtigii guga la soo dhaafay dayrtan diyaar garow badan iyo in Garbadii Baydhabo biyo ay si ay u keediso looga faa'iideysto buundooyinkii qashin baa dhooban meelihii biyaha soo mari lahaayeen way xiran yihiin marka naftirkeeda waxaan dareemaynaa in deerta soo socota si qurux badan aan looga faa'iideysan doonin haddii aan laga faa'iideysan waxa dhici karaysa oo laga yaabaa in beeraha qudaarta ee ku tiirsanaa biyaha Garbada inay sii baaba'aan marka
bulshada iyo beeraleyda iyo maamulka waxaan kula talin lahayn in badbaadadii iyo noloshii iyo sumcaddii garbada ku jirta in la badbaadiyo